back better waa biilkii shalay la ansixiyeen aqalka hoose ee Mareykanka dimuqraadiga dhamaantoodna u wada codeeyeen aan ka ahayn hal nin Republicaankan ay dhamaantood ku soo horjeedeen aqyaarta waxaa maanta idin hayaa biilkii shalay la ansixiyay muxuu ku saabsan yahay maxaase ku jiro maxaan haddaan nahay Mareykan naga quseeyo qaasatan dadka tabaaleysan masaakiinta iyo dadka middle class-ka dimuqraadiga sheegeen biilkan noloshooda kor ayuu u soo qaadayaa wuuna u fiican yahay intaan gudo galin barnaamijka biilka idinkaga sheekeen waa anigoo maxamed faaraxa fadlan haddaad channelka YouTube ku cusub tahay subscribe garee videogana la wadaag haddaad ku arka social media dhammaan asxaabtaada ehelkaaga shalay ayay waxaa ansixiyeen biilkii aqalka hoose waxayna u kala codeeyeen sidan 220 waxay tiri yay 213 waxay tiri nay 220 yes tiri hal ka mid ah ayaa dimuqraadiga ka goostay oo Republican ka aaday halkaasna magaca ka soo galo Maine Jaron Golden oo yiri biilkan ma ansixinayo ama meesha laga soo doorto district laga soo doorto oo ma baahna biilkan dimuqraadiga ayaa ku sheegay biilkan in uu yahay biil dadka masaakiinta Mareykanka iyo middle class-ka dhamaantood anfacayo waa biil oo hore Biden ballan qaaday markuu tartamay madaxweynaha inuu dadweynaha Mareykanka siin doono inuu middle class-ka poverty-ga gaajada la dagaalami doono middle class-na kor ugu soo qaadi doono haddaba aan isdul taagno qodobada muhiimka ah ee biilkan ku jiro kow aan ka bilaabo waa expanding child tax credit ka hadeertaan 250 ama 300 la siiyo waalidiinta iyo caruurta la siiyo wuxuu ku eg yahay sanad waa hal sanad kaliya marka hal sano kale ayaa lagu darayaa oo ilaa 2022 ayuu noqonayaa sidii ayaana loo siinayaa 250 ama 300 caruurnigii 6 sano ka yar 300 6 sano ka weyna 250 waa biilkan waxaa la yiraahdaa qodobkan waa qodob aad iyo aad successful u noqday dimuqraadiga oo laga dareemay dhaqaalaha Mareykanka waalidiinta iyo caruurtana ka dareemay maadaama lacag la siinay bil walba joogta 250 ilaa 350 hadaa waalid tahay qodobkan waa ku muhiim hal sano kale ayaa lagu darayaa waa haddii ugu dambeyn biilkan la ansixiyo aqalka sare iyo ay madaxweyne Trump madaxweyne Biden balahada ee saxiixan sidoo kale Homeland Care ayaa la kordhiyay oo 150 bilyan oo dollar loogu daray housing guryaha oo subsidies-ka ah sida Section 8 iyo low income housing ayadana 150 bilyan oo dollar la siiyay free PK ayaa ayadana laga dhigay dhammaan iskuulada yariiska 400 bilyan oo dollar Medicare 335 bilyan oo dollar Pell Grant ardayda aada jaamacadda college-ka aado ayagana waxaa 40 bilyan oo dollar ayaa loogu talagalay clean energy hawada aan ku noolnahay oo waqti climate change inuu saameeyay 555 bilyan oo dollar ayaa loogu talagalay iyo sidoo kale programyaal badan oo dhamaantood noqon doono 220 bilyan oo dollar biilkan waa 1.75 trillion dollars waa biil gacanta ku soo qortaan dimuqraadiga madaxweyne Biden Nancy Pelosi progressive-kana ay aad iyo aad ugu dambeeyeen ay hogaaminayso gabadheena Ilhan Omar isla markii shalay markii biilkan la ansixiyay dimuqraadiga waajib baa degeen sidan ayayna yiraahdeen sidoo kale madaxweyne Biden ayaa dabaaldegay yiri biilkan waxay u tahay guul dhammaan shacabweynaha Mareykanka dhammaan ummadda Mareykanka meel walba ay joogaan ama wuxuu yiri xataa jirahada mafqirahadan wuxuuna sheegay lacagtan in laga soo qaadi doono dadka taajiriinta ah oo cashuurta aan laga qaadin iyo shirkadooyinka aan cashuurta laga qaadin ayaan lacagtan la ka keenaynaa oo deficit ma galayno inkastoo arrintaas la buriyay ay dhaheen Congressional Budget Office-ki ay dhaheen 160 bilyan oo dollar deficit-ka ay ku saacidinaysaa 10 sano dambe biilkan waxaa ka hor imaaday dhammaan Republicaanka oo idil aqalka hoose iyo aqalka sare waxayna ballan qaadeen inay dagaalami doonaan aqalka hoose markii biilka la geeyay ay ridin doonaan dhammaantood Kevin McCarthy ayaa 8 saac 41 daqiiqo ka hadlay aqalka hoose khamiistii biilkan la ansixiyo keligiis ayaa u hadlay speech-kii abid ugu dheeraa 8 saac 41 daqiiqo halkaas oo mataqaanaa daahiyay shalay jimco markay ahayd 8 iyo barkii subaxnimo ayaana la ansixiyay
biilka wuxuu aadayaa aqalka sare ayaa loo baahan yahay toqadan inay ansixiyaan. haddaba aqalka sare waxay ka kooban yihiin 100 senator, 50 waa republican, 50 waa dimuqraadi. waxaa loo baahan yahay si biilkan ku hirgalo 50ka dimuqraadiga inay isku dheganaadaan eena codeeyaan, 50kuba yay dhahaan. waxaa filaynaa 50ka republicanka inay nay dhihi doonaan. tiebreaker marka waxaa noqon doono madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka gabadheena Kamala Harris ayaa breakdown biilka ku ansixi doona. laakiin cilad ayaa jirto, nin dimuqraadi ah oo laga doorto West Virginia magaciisa la yiraahdo Joe Manchin ayaa ka hor yimaada biilkan. khaasatan wuxuu diidan yahay qodob ku jiro, qodobkaas oo ah family leave-ka, dadka loo fasaxayo haddii mataqaana jiradaan ama shaygooda ama odageeda hadduu jirado ama carruurtooda jirato ama qofka shaqaalaha ah haddii gabar tahan ay dhasho oo family leave-kii la siin lahaa. family leave-kaas kasoo horjeeda halka bilka ah oo la peegareynayo, ama W2 qofka ha qaato ama gig worker ha ahaado ama tenant ha ahaado. family leave-kaas ayuu kasoo horjeedaa Joe Manchin uu yiri waa in wax laga bedelaa. waxaa laga yaabaa haddii laga dhaadhiciyo waa halka kaliya diidan yahay kaliya biilkan. haddii dimuqraadiga isku tagaan Jack Schumer iyo madaxweyne Biden iyo Nancy Pelosi ay ka dhaadhiciyaan Joe Manchin in mataqaana biilkan wax ka bedelaan uu diidan yahay halkaas qodob kaliya uu ansaxayaa, uuna hirgalayaa. sidaas ayay noqon doonaa 50-50. Kamala Harris ayaa la tiebreaker ahaan doonto, sidaas ayuu biilka ku ansixi doonaa. waxaa la filayaa biilka inuu floorka imaado, aqalka sare imaado inta aan la gaarin Christmaska December sanadkan. hadda holiday ayaa la aadaya Thanksgiving, aqalka hoose aqalka sare holiday ayaa aadaya Thanksgiving. markii laga soo laabto biilkan dood ayuu galayaa, waxbaa laga bedelayaa ama sidiisa ayaa lagu marsiin doonaa. waxaan sugnaaba waa inuu biilka hirgalo, laakiin waxaa muhiima inaad ogaataan biilkan wuxuu dan u yahay dadka masaakiinta iyo middle classka, dadka faqiirta iyo middle classka Mareykanka ayuu dhaqaalahooda kor ugu soo qaadayaa. hadday ahaato iskuulada, hadday ahaato college-ka, hadday ahaato climate change-ga, hadday ahaato daycare, home health care, hadday ahaato free PK, hadday ahaato wax walba dhaqaalaha ay kor u soo qaadayaan. waana biil muhiim ah, ama child tax credit ama family leave, waxyaalaha ayuu muhiim u yahay. waana biil dimuqraadiga ay ballan qaadeen, khaasatan Biden markuu tartamayay uu ballan qaaday. waxaana sugaynaa dimuqraadiga inay ballantay qaadeen ka soo baxaan. laakiin waxaan ognahay republicaanka inay biilkan ku tilmaameen socialist bill, loona baahneen Mareykan xilligan inay diidan yihiin. balse guusha waxaa ka hartay wax yar. hadduu wixii kasoo kordha barnaamijkaana waa idinla soo socodsiin doonaa ka hor markuu imaado biilka. qodobka labaad, shalay si yar oo brief ah 85 daqiiqo ayaa madaxweyne ku simaa waxay ahayd madaxweynaha ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris kadib markuu madaxweyne Joe Biden isbitaal aaday medical check isku suubanayay. baawarkii wuxuu ku wareejiyey Kamala Harris. waa markii ugu horeysay gabar Mareykan ah ee noqotay madaxweyne ku sime intaas rekoorka ayay gashay. hadda ka hor way dhacday, waa routine medical check-up. madaxweynayaasha hore suubiyo waxaa kamid Ronald Reagan, Bush senior ayuu xil ku wareejiyay maruu medical check-up suubinayay. sidoo kale Bush junior markuu medical check-up suubinayay wuxuu xil ku wareejiyay Dick Cheney. marka wax routine oo dhaco wax weyn ma jiro. madaxweynaha dhaqaatiirtu waxay dhaheen waa caafimaad qabaa, caafimaadkiisana waxay dhaheen waa fay. oo wiil yar weeye 29 sano jir ayuu maanta jirsanay oo u buuxsantay, waana hal birthday-giisa maanta. qodobka saddexaad, Obamacare ayaa dib u furmay. sanad walba Obamacare waa la furaa, Medicare-ka Obamacare waa la furaa sanad walba. khaasatan waxaa loo furaa dadka aan shirkadaha ka shaqeynin ama W2-ga aan qaadan oo shirkadahooda aan caqaar caafimaad ka buuxsan karin, khaasatan dadka 1099-ka gig workers-ka ay dhahaan. sanad walba barnaamijkan wuxuu furmaa hal bil ayuu furnaan jiray. toqadan waa la ballaariyay. November 1 ayuu furmay, wuxuu ku egyahay January 15. kaar caafimaad haddaa u baahan tahay self-employed ama independent contractor, fadlan buuxi kaarkan caafimaadka ah. lacag waxaa bixinaysaa bishii $20, $30, $40, $50, whatever. waxaa lagu qiimeynayaa taxigaaga iyo canshuurtaadii sanadkii hore 2020 ayaa lagu qiimeynayaa. ka faa'iidaysadaa kaar caafimaad heedin bil walba waxaa lacag bixinaysaa si mataqaana aad isbitaalka uga aadid. waana muhiim, waana qudan. waddanka Mareykanka haddaad joogtid kaar caafimaad la-aan ma joogi kartid, waayo mar un waa jiranaysaa. soo fadlan ka faa'iidaysta kaar caafimaadka oo furmay. wuxuu furmay November 1, wuxuu ku egyahay January 15. qodobka afraad oo muhiim ah, Mareykanka waxaa ka dilaacay inflation, sicir barar aad iyo aad u weyn. cuntadii, raashinkii,
alaabihii dhammaan pricekooda kor u kacay waxaa lagu eedeynayaa dhowr qodobka ugu muhiimsan waxaa waaye in mataqaanaa caalamka oo dhan shadaan ku jira shirkadaha ay shaqaynaynin shirkadaha maraykanka shaqaalayaashooda ay qaateen layoff ama unemployment iska qaadanayeen in canshuur lagu dirayo alaabta China laga keeno ama Yurub laga keeno ayadana sicir barar suubisay in sidoo kale waxa ugu muhiimsan corporate-ka iyo shirkadaha maraykanka ee waaweyn in si kas ah ayuu ku mursoonaa sicir barar ee alaabta ugu daraan si ay lacag badan jeebkooda u gasho ee lacag badan u suubiyaan sicir bararku uu jira laga foojignaado ka taxadara waxaad u baahan tahay kaliya xilligan oo kala gado ilaa sicir bararku ka dagayo waxaa la rajaynayaa ilaa November ilaa Christmas ka sanadka dambe inuu sii socon doono holiday seasonka alaabta ee qaali ahaan doonaan ilaa sanadka dambena xaaladda ay degi doonto balaakiin sicir bararka iska jira waxaad u baahan tahay kaliya gado waxaad u baahneen dib u dhiga sanadka dambe waxaan ku soo gunaanadayaa waxaa barnaamijkii caanka ah ee barnaamijka wuxuu quseeyaa reer Columbus kaliya Franklin County Columbus Ohio barnaamijkii Equity Fund $10,000 ahayd uu socdaa wali dadka invitationka loo soo diray waa inay ka jawaabaan ay application-kooda dhamaystiraan si ay lacag 10,000 ama 15,000 u helaan haddii invitation lagu diray waqti ayaa lagu qabtay waxaa lagu leeyahay ama 22 November ku dambayso ama xilligaas ku dambayso 7 days ku dambayso fadlan application-ka buuxi sida ugu dhaqso badan dir la xiriir case waqtigii lagu assign gareeyay una sheegna application-ka dhamaystay inuu submit gareeyay u sheeg waxaa sidoo kale socda barnaamijka EIDL program oo kusoo dhammaan doono December 31 2021 haddii aad haddaba tahay gig worker 1099 aan haysatid 2019kii iyo 2020kiina aad 10 haysatid fadlan barnaamijkan ka faa'iid haddii aad dhaqaalahaaga khasaaray 30% pandemiga xaq ayaad u leedahay inaad 10,000 heshid haddii 50% dhaqaalahaaga khasaarayna waxaad u helaysaa $15,000 W2 ma loogu talagalin waxaa kaliya loogu talagalay qofka kaliya ee 1099 qaato laakiin shirkadii W2 shaqaalaheeda siisa way buuxin kartaa waxaa sidoo kale shuruuda labaad ah in zip code-kaaga uu ku yaalo low income community neighborhood fadlan labadan barnaamij ka faa'iideysta midna wuxuu quseeyaa Columbus midna dhammaan Maraykan shacabweynaha Maraykan ayuu wada quseeyaa waa anigoo Maxamed Faarax oo idinkaga tagayo sidaas iyo nabadgelyo